kusoo dhawaada madaxweynihii hore jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo si weyn ula hadlay wadannada dalka Masar iyo Turkiga iyo wadano badan oo dhowr ah. marka dawladda Masar waxaa la iyadoo waxa soo dhanog maanta ciidanka xoog galay keenaysa xamar iyo ku socda hadday Soomaali u daraynayso oo wanaageeda doonayso dadka maanta xamar ka taliya Qaahira Soomaali waxay ku heshiinaysaa way garan lahaayeen si nabada ayay wax la qaban shirkii Qaahira lagu qabtay Soomaaliyeed waxay ka soo baxay waa loobi inta shir qabanay kii ugu litay waxa taa maanta ay wadi muddo ciidan ay keento Soomaaliya oo iyadu danteeda ay ka fujito in Ethiopia iyo Soomaaliya dagaal ugu jiraan la ilaaliyo danahooda Nile ما بنقول له يبي على قصر أنا قبل كانوا قلنا شعب كسومال شعب كمصارده لكن تي سومال مكاية ويقصتنا إسرائيل بالحلوة وكدورنا شعب كسومال هو أركه وأنا أركنا ترى حرية أنا عند غريق هذا كفتا إلهي بوي متشو حوق يسبحيس بالصوت أنا أنا رأيت ودوق هذه إما كمسؤول وصعوني يا حرية سؤال هذا وأقول عليه أنا وهذا أنا جونا كوان الله كويسين أنا بعوضه لأنه سؤالك صاروخي muuqaalkan xiga intayna ku kulmi doono sidaas iyo fi amaan ilaah